waxaan ahay dadka u dhashay kuna dhashaan ahay caasimadda aniga ninka loogu yimid ayaan ahay muxogga iyo waanbaha iyo cooska iyo caanaha ninka keenaya waxaan ka soo jeedaa wacbuudhan abgaal gaar ahaan beelweynta galmaax yunis waxaa la yidhi ninkii geed tiriyey oo yaa ka tegey geed ma tirinaa la yidhi markaan aniga ahaa galmaax yunis ninkii ilaahay ku makaneeyey gobolka banaadir ayaan ahay oo lagu sheego oo una dhashay oona leh muxogga ee goofka waxaan cabasho ka nahana jabiye xisbiga sancad ninka u ah madaxda wuxuu nagu sameeyey magacyaashayna ayuu beddelay magacyo kale ayuu keenay haddii awood qaybsi ay naqatana aniga gobol kale uma tartamaayo gobolka banaadir ninkii maanta lagu sheego ilaahay ku makaneeyey in iskale una dhaaro karo aniga waay kursiga aniga aan lahayna in lee duudsiinayo magaceyga la soo beddelaayo taasi waxaan u arkaa waxaana la iska yooli doonin oona soco doonin nin la yaqaan u dhashay ku dhashaan ahaa gacantaan taagto 2000 iyo bayuu aan keenay codka 11 kursi ayaan ka keenay degmada cabdicasiis 20 xisbiya oo tartamaysay sancadaan ka soo saaray 11 cod codkii aan keensaday ayaa leegu xaqiray in leegula tartamo waa jeclaay laakiin isdhihi maynin kursigaaga magacaaga inta la tiro ama magac kale lagu soo qoraayo kursigaaga la qaadaa السلام عليكم ورحمة الله وإذن سلامي بلشوين تكونول عاصمة الصومالية قران قبل كبنادر وحان هاي مشرح وترتم معي قولها الديقان قبل كبنادر دقمدة عبد العزيز وان قولي السنة حزبية بدن باكولا ترترني لاباكن بقول إيو وحان كيني كو إيتوبان كرسي آيان يالاني xisbiga marka kow anagaan shahaadooyinka ka qaadanayna musharaxnimo waxaana lagu qudbeeyey ninka degmo kastaba waxay ayada keensato inay ayada leedahay ee musharaxiintaasi ku soo baxayaan maanta waxaan aragnaa markii aan guusha aan keennay in annaga magacayaasheena magacyo aan ahayn la soo faafiyey oo la yidhi magacayaashaas ayaa xildhibaana ka ee gobolka banaadir degmada cabdicasiis meesha hadday tahay eeday run ahaantiina waxaan ka hadlayaa waxaan ahay dadka u dhashay kuna dhashaan ahay caasimadda aniga ninka loogu yimid ayaan ahay muxogga iyo waanbaha iyo cooska iyo caanaha ninka keenaya waxaan ka soo jeedaa wacbuudhan abgaal gaar ahaan beelweynta galmaax yunis ayaan ku matalayay kursigaasi aan ugu tartamaya cabdicasiis musharaxnimada golaha deegaanka ee xildhibaannimada waxaa la yidhi ninkii geed tiriyey oo yaa ka tegey geed ma tirinaa la yidhi markaan aniga ahaa galmaax yunis ninkii ilaahay ku makaneeyey gobolka banaadir ayaan ahay oo lagu sheego oo una dhashay oona leh muxogga ee goofka oona degmo dhiibay oo saldhig dhiibay madaxtooye dhiibay baarlamaan dhiibay inta saldhigoo xamar ku taalla ninka dhiibaan aniga ahay maanta anigoo u ongol in laygula tartamo kursiga ee musharaxiinta ummadda soomaaliyeed ee ku tartamaydo kursigayga markaan la imid in magacayga la bedelo taasi bulshaweynta Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya aan cabasho ugu jeedinayaa waxaan cabasho ka nahana jabiye xisbiga sancad ninka u ah madaxda wuxuu nagu sameeyey magacyaashayna ayuu beddelay magacyo kale ayuu keenay haddii awood qaybsi ay naqatana aniga gobol kale uma tartamaayo gobolka banaadir ninkii maanta lagu sheego ilaahay ku makaneeyey in iskale una dhaaro karo aniga waay markaan ahay wiil abgaal ismaano wacbuudhan abgaala oo galmaax yuunisa waxaana ugu tal qof kale oo galmaaxa oo maanta u sharxan oo xildhibaanay ka tahay cabdicasiis lahayna ma jirto ninkii uu tartamay ku guulaystay aniga waa oo magaciisan la beddeshay degmada cabdicasiis matalaadda ee beelweynta galmaax yuunis ay ku lahayd hal xildhibaan kuma jiro xildhibaanka u taagnaay aniga waay magaceygana waa laga beddelay magac kale ayaa la keenay qof dariishada laga soo galsay ayaa timid dhul ninkiisiyaa iskale adar dhul ninkiisi baa iskale goofkayga haddaan aniga wax ka naqahaynin wax socohaya adduunyo ma jiraan haddaan aniga leegu ixtiraamin anigoo u ongol in xildhibaano kale inay ka soo baxaan kursiga aniga aan lahayna in lee duudsiinayo magaceyga la soo beddelaayo taasi waxaan u arkaa waxaana la iska yooli doonin oona soco doonin oona dib loo wada hadli doono dawladda Soomaaliya
iyo guddiga doorashooyinka waxaan u dirayaa cabashadaasi inay wax ka dhahaan baasha haddii awood qaybsi tahay qabiil tahay boorbanti fef ay tahay aniga waxaan ka soo jeedaa balweynta abgaal ismaa wacbuudha abgaal gaar ahaan galmac yunis kursiga aan ku leynaha degmada cabdicasiisna anigaa u tartamayey magacayga in la bedelay magac kale lagu soo qoray ayaan xalay ka arkay garuubyaha iyo facebooka inuuna magacayga ku jirin degmada cabdicasiis ninkii keenay 2000 iyo bayuu ayaan ahaa cod degmada cabdicasiis ku keenay waxaa leeyahay meesha lagaa yaqaano iyo nimaana meel laga aqoon hadduu yimaado ninka la raacayo waa taqaaniin nimaan la aqoon gacan hadduu taago qofna la hadli mayso nin la yaqaan u dhashay ku dhashaan ahaa gacantaan taagto 2000 iyo bayuu aan keenay codka 11 kursi ayaan ka keenay degmada cabdicasiis 20 xisbiya u tartamaysay sancadaan ka soo saaray 11 cod codkii aan keensaday ayaa leegu xaqiray anigoo gooflaac ayaa maanta xaqiraad taaganba nin ka yimid mahad og tihiinna ka sheegi ma cunsuriyey maay aniga waa ongolay in laygula tartamo gobolka banaadir anigoo gobolka in waxaa layidhi neef geele mii lagu qalaba goosaaro waa laga dhiibaa in laygula tartamo waa jeclaay laakiin isdhihi maynin kursigaaga magacaaga inta la tiro ama magac kale lagu soo qoraayo kursigaagaa la qaadaa ummadda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed ayaan cabasho u dirayaa waxaana dacwo ka nahnay jabiye xisbiga sancad ayaan dacwo ka nahnay xisbigaasi musuq maasuq ayuu sameeyey iyo midigta kor iyo cunsurinimo markaad adiga dad cunsurinayso adiga goofkaaga maahan meesha adigoo goofkaaga ahayna lagu xushmeeyo matalaad ka qaadaa lagu yidhi ninkii goofka lahaa haddaad cunsuriyeyso waxa socahaya adduunyo ma jiraan beelweynta galmaac culisna waxaa baaq u dirayaa degmada cabdicasiis inaana wax matalaada aana ku hayn kursiga aan u sharaxnayna magacayga laga tiro magac kale lagu soo qoray intaasaan hadal ku ekaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh